Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta barnaamijka Sea Trader ayaan guda geli doonaa insha Allahu tacaala. Platformkan asoo waxaa jiro oo kombiyuutarka lagu shuba karo ayaa jiro. Marka hadda aniga waxaan ku shubtay kombiyuutarkii ayaan kusoo shubay. Sea Trader waxaa develop gareysay Sportware, shirkadaas ayaa maaragtay develop gareysay, halka MetaTrader 4 ay develop gareysay MetaQuartz. Marka waa laba platform, laakiin waxaa traders inta u badan waxay kasoo guuraan MT4ka, waxayna usoo guuri doonaan Sea Trader maadaama uu yahay platform more advanced ah, features fara badan uu leeyahay. Marka hadda markaa soo kicisid wuxuu keenayaa halkan ayuu keenayaa. Wuxuu u baahan yahay internet inuu kugu xiran yahay marka hore wireless, sida MetaTrader 4 oo kale internet ayuu u baahan yahay. Markaa soo gashidna wuxuu u baahan yahay login aad gashid oo yacni Gmail-kaaga aad ku xiratid. Marka kabacdina hadda saa u jeedaan wuu soo qabtay, yacni account-kayga wuu soo qabtay, wax walbana sida loogu talagalay ayuu u shaqeynayaan. Marka wajahadan ugu horeyso waxaa waa chart-iga waaye. Markaa chart-iga saa u jeedaa waa isbedelaysaa. Marka waxaa waaye tan waa chart-iga lacagta, waxaa waaye Bitcoin EUR chart-geeda waaye. Marka waan iska xireynaa window-gaas. Sida u jeedaan platform-ka waa kana. Marka ugu horeyso aragtid waa platform mashallah oo very easy ah oo aad u fudud. Dabcan waxaan is dhihi karaa MetaTrader 4 oo ka fudud yahay. Wuxuu leeyahay features aad u fara badan oo aanu lahayn MT4ka. Sida u jeedaan hadda waxaan joognaa JPY ayaan joognaa chart-geeda. Marka wuxuu leeyahay features aad very important oo muhiim ah oo aan laga helayn MetaTrader 4ka. Featureskaas waxaa ka mid ah insha Allahu tacaala sida arki doono. Markaa rabtid inaad trade gashid halka MT4kii markaa joogtid waxaa ku qasban tahay inaa qiimaha adiga maaragtay aad gelisid take profit ka stop loss ka. Laakiin waxyaabaha aad ku jeclahay oo dabcan ugu kaliftay inaa barnaamij hadda usoo guurisid traderka waxaa waaye markaa rabtid inaad trade gashid lacag cayiman waxaa gashanaysaa inta bib aad rabtid kaliya, ma gelinaysid qiimaha, ma gelinaysid oo price-ka oo take profit-ka iyo waxaas ma gelinaysid. Inta rabtid aad gashanaysaa, ama 30 bib aad take profit-ka ka dhiganaysaa, ama 40 bib, ama 60 bib. Stop loss-kaaga ma 20 aad ka dhiganaysaa, ama 30 aad ka dhiganaysaa, ama 25 bib aad ka dhiganaysaa. Bilmatal haddii hadda isla eegno waxaanu gelaynaa order ayaanu ku sameyn doonaa. Order ayaan hadda aanu sameyn doonaa insha Allahu tacaala. Hadda waxaa joognaa qaybta watch list ayaa joognaa. Hadda waxaa leedahay marka create new order ayaa leedahay. Marka qaabkaas waa qaab kuwad waa order ku furi kartid. Lacagta right kale ku dul leedahay kadibna create new order ayaa leedahay. Kadib waxaa ku soo bixi doona window-gan. Okay, window-ga markaa waxaa arkaysa wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan ayuu leeyahay. Marka quantity-ga oo kale waxaa waa lot size-ka oo kale rabtid oo kale halkaas aad gashanaysaa 0.0 waraaqdi dooran daarabta halka qaada haddana sii furto waxyaabo waa lot size badan ah. Stop loss ba u sameynaysaa tiga saarayda kadibna halkan meeshan oo hadda 15 waxaa ka tiraysaa waxaa ku qoraysaa stop loss ka rabtid inaad dhigatid. Laakiin means waa inuu la socdo mar walba 40 bib ayaa ka dhigta halkan. Take profit-kan waxaa ka dhiganayaa for example take profit-kan asigana waxaa ka dhiganayaa 150 bib ayaa ka dhiganayaa. Waa lacagta gold ayaa gal rabaa. Okay, marka uma baahnid inaad qiimaha gaarsaa qiimaha ku gelinaysaa ujeedid
estimated price qiimaha stop loss waa gelina estimated take profit qiyaas ahaan take profit ka price qiimaha oo noqonayo waa very easy balancega account-ka balancegisa boqolkiiba inta maaragtay stop loss ka oo riskiga ah ayuu kusoo qoraa hadda waxaa waa 0.04 balance take profit kaagana boqolkiiba balancega intuu ka yahay 0.14 marka waa risk reward ratio aad iyo aad u wanaagsan halkan profitkan ayadoo dollar ahaan ayuu ku sheegay sidoo kale trailing stop u sameyn kartaa oo marka stop loss gaaro uu sii durkina entry uu keenaa kadibna qiimaha stop loss ka tan take profit uu keenaa 2 3 saas ku wada marka stop take ayaa saaraysa okay order-ka hadda macnaha waa buuxisay marka place order dhigi kartaa sidoo kale waa inaad dooratid marka sell ama buy waa inaad dooratid labada waa inaad kala dooratid okay marka ka bacdi marka wax walba hubtid waxaa leedahay place order waa very easy platform qofka xataa suuqa ku cusub wuu fahmi karaa sababtoo ah u baahan inaad geliso qiimaha take profit iyo waxaas inta bib stop loss ka take profit ka gashanaysa ka bacdina boom hore ayaa suuqa galaysa markii qiimaha stop loss kala gaaraan take profit kaagana dabcan marketka asiga ayaa marka suuqa ka saaray ama faa'iido ka saaray ama khasaaro ayuu ka saaray waa very easy platform waa platform ugu fiican maaragtay aan arkay intaan trading career-kii ku jiray asxaabay waa very easy platform insha Allah ta'ala muuqaalo fara badan oo soo sameyn doona dabcan barayaan asaga ayaa xoog saari doona maadaama platform fiican oo yahay sidoo kale walaalayaal waxaa xusid mudan inaa muuqaal ka soo sameyn doono qaabka ugu xirleed broker-kaaga haddaad doonaysid inaa platform-kan aad ku trade-garaysid laakiin marka hore waxaa ku dhihi lahay si trader-ka asoo waxaa jiro demo markuu practice garay kadib markaa la qabstid ka bacdi real-ka ku xiro marka hadda waxaa la eeganaa new chart ayaa dhahnay waxaa joognaa XAUSD marka waa iska yareynaynaa meesha la yareynaa yes halkan ayaanu ka yareynaynaa chartiga zoom out ku sameynaynaa okay this is cool all right marka halka ayaa suuqa aanu ka galno order-keeni halkaas ayaa laga buuxiyey hoosna maaragtay halkaan new order waa ka furi kartaa sidoo kale qaybta hoose wuxuu ku tusayaa balancega lacagta kugu jirto iyo trade-yada ku furan meesha marayaan ayuu ku tusayaa waa terminalka waa mental for terminalka iyo kala waaye waa very easy platform okay marka detach waxaa dhahnay chartiga macnaha kaligiis ayaa marka soo baxsan kartaa soo full ah ku soo bixi doonaa dabcan marka chartiga marka window cusub waaye oo chartiga kaliya ah marka hadaan iska xirnay waxaanu isla eegi doonaa lacagtan time frame-ka waxa ka dhiganaa M30 ayaa ka dhiganaa 30 minutes ayaa hadda inoo dooran marka sida u jeedaan asxaabay okay insha Allah hadda order kale ayaanu geli doonaa insha Allah ta'ala marka sida u jeedaan hadda lacagta account ku jirta iyo ID waa kaasa account-ka ku jiro macnaha user ID ga lagu soo galayo waa kaasa waa very advanced platform very sophisticated aad iyo aad ayaa loo horumariyay masha Allah platform fiican lagu soo dhawaado asxaabta hana la barto platform-kan insha Allah waxaa ka soo sameyn doonaa tutorials aad iyo aad u fara badan ilaa aad la qabsataan okay marka new order taabanayna orderska ayaa rabaa inaad si fiican u fahamtaan guys qaybta kale oo midigta waxaa marka orderka furtid lacagtaas macnaha asset-kaas gaarka ah chartigeeda ayaa ku soo baxay marka candlestick ayaa dooranayna kadib xoogaan waa iska yareynaynaa chartiga si nadiif u aragno price-ka marka waa aragtay qaybta bidixna waxaa waaye waa qaybtii orderska laga furay qaybta kalena waa chartiga marka wax walba aad iyo aad ayaa loo nidaamiyay software-kan ama platform-kan
Okay. Hadda marka waxaan rabnaa inaan orderka buuxino. Inaan orderka aanu buuxino stop loss-ka waxaa ka dhiganaynaa mar walba stop loss-ka ugu minus ayaa la socda. Minus waa inaan la socda ku darteed. Minus waxaa leedahay 25 bib waa macnaheeda. Take profit-ka waxaanu ka dhiganaynaa take profit wax minus lama socda. 45 bib ayaa ka dhiganay. Trailing stop u sameynayna may trailing stop uncheck ayaa saarayna markaan lacagtaanu waxaanu maaragtay waanu iibsanaynaa ma garatay marka wax walba hubtid insha Allah waxa dhigi doontaa place order. Okay marka wax walba waa check gareynaa kadibna waxa leedahay place order ayaa taabanaysa. Okay hadda place order ayaa dhahnay dalabkeenina sidaas ayaa lagu furay. Sidaas ayaa hadda lagu furay. Dalabkeena waa kan hoos terminalka waa soo jeedaan waa kaasa waqtiga gashay stop loss-ka take profit-ka entry price-ka waxyaabo fara badan arkaysaa sample quantity lotka ku gashay wax walba arkaysaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay close maaragtay waa iska xiri kartaa trade-kan marka wuxuu ku leeyahay marka confirmation ayuu ku soo qorayaa. waxaa marka adiga akhri insha Allah marka trade xir martid instruction oo ku siinaya macnaha qaabkii aad trade ku xiri lahayd ayuu marka ayuu ku sii faahfaahinaya. marka okay leenahay ka bacdina markale ayaa trade-kii click siinayna boom marka saas ayaa ku xirnay trade-kii orderka sidaas ayaa ku xirnay waliba email ayaa ku soo dhacay.